السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel ka daawanayso waa Leila Axmed official. channel ka daa ku cusub tahay subscribe deh, like, share, comment qurux badan ka soo bixi. Hadaa hore la joogtan daawashada mar walba daawanayso waxa kule aad ba u mahadsan tahay maasha Allah. Hadaa igu cusub tahay soo dhawow. Iga raali noqdo hadii aad aragtaan comment sida ugu aragteen title-ka hooyo xanuunsanaysa ayaan rabaa inaan ka hadlo. Xanuunkaas oo ah hooyanimo ay danqanayso walaashay Farxiisooya official. Farxiisooya official waxaan rabaa inaan ugu hadlo sida oo gabar walba Soomaaliyeed ilinteeda ii dhibta ayadana ii dhibaysaa. Halkaan ka salaamo walaashay qaalida maasha Allah. Waxaan leeyahay horta ugu horeyntii intaan ra'yigayga aan ka hadlin waxaan rabaa idin kala comment-igana insha Allah ku soo qortiin aniga ra'yigayga ila aragtiin ayadana aad hadaladeeda ila dhageysataan. Hadii hadaladeeda aad si gaf aad ku arkaysan ka raali noqda. Hadaladeeda markaan dhageystay aad iyo aad ayaan u xumaaday, aad iyo aad aan caloosha iga xanuunsay. waxa markay wax history-gaaga daawanayeen ma laga hadli karo. Soomaaliyeed ilmaheedina haysto way jeceshahay unugeedina caaw ka dhax ma jeclo. Gabadha hadda waxay ku jirtaa marxalad anoo dhan aan ku wada jirno weliba marxaladda hadda ay ku jirto 2019 waxay aheeday 2018 bishii 11aad bil hilmaami kala maahan. qof walbo history uu leeyahay weliba xun iyo history fiican. horta been maahan gabar walbo history way leedahay taasoo nolosheeda tahay nolol dhibaato badan, nolol farxad badan. inkastoo 80% gabdhihi ay u badan yihiin noloshooda inay aad u xun tahay. Farxiga kaligaana ma ahan, gabar waliba 100% markii la dhaho 80 dhibaatada aad dareemaysay ay ku jiraan. tii ku sabarto oo noloshaas ku taagan iyo tii noloshaas ka baxdo awlaadeeda ku weyso ama tii awlaadeeda dhabar ku dhigato oo gaajo iyo rafaad kula noolaato. sida aad u sheegtayba gabadh walaashay Farxiyo Turki, Farxiyo Soomaali. alxamdulillah dulqaadka la isdheelyahay sababtoo tahay marxaladda qof aan hooyo ee dareemi karo. waxaa arkaysaa qof hadda gabdho badanoo waxaan arkayay gabadhan ku dhaga hadlaayo ma rabo waxay sameynayaan inaan maaragtay aan sheego laakiin halhaaskooda ugu dhow oo ahay wixii laga qaatay ilmaha qabtaa wixii looga qaato wax kale maahan. labada qof markii ay kala fogaadaan ay haddana rabaan inay isku soo laabtaan qof xaggiisa la iskaga soo laaban karin cilada imaanayso sababtoo tahay adduunyada ilaa been maaha taasoo ku taageersanahay. Farxiyo waxay ka hadashay marka adiga aad ninka kala tagtiin wiilka Soomaaliyeed uu rabo inuu kugu soo laabto oo qasab kaaga dhigayo awlaadda inaad micnaha awlaadda uu kugu hanjabayo in qata hanjabaad micnaha hadii ku xumeen ahaan aad awlaadaada ku weynaysaa. hadii markaas aad diidid inuu asaga kugu laabto mise uu nolosha sidoo asaga rabo inuu ka yeeshto haduu soo ogoleen waxay noqonay inaad nolosha awlaadaada aaweysid. taas mid adiga kaliya kugu koobnaaha gabar walba ku dhacdaa. markaas asku leeyahay waxay tahay mara garabkaada taaganahay oo micnaha ha isdhihin nolosha kaliga ama dhibkan kaliga ayuu ku haystaa mise kaliga uu kugu dhacay. gabdhaha Soomaaliyeedna waxay social media video ku horeeyna u sheeg waxay social media la taageen ay mar walba la ooynayaan waxay tahay dhibaatadooda qof maanta ka dhageysanayo ma jirto. Ilaahay baan kugu dhaartay qof awlaadiisa rabo oo maanta inuu korsado oo maanta loo diiday yahay hooyo inay awlaadeeda rabto inay korsato oo maanta loo diiday yahay ama loo diiday ka sheekay. taas ka sheekay
aad iyo aada wallaahi ugu xumahay, aad iyo aada ugu xumahay farxiyo abaayo midda ku gaartay aada ugu xumahay. waa mid aan la dhibtoonayn anaga dhan. adduunyada ilaahay waxa ugu fiican waa ilmo, waxa ugu fiican oo la helo waa ilmo, ma fahanteen? marka sababta ani haddii laga hadlaayo oo wax miisoo korin farxiyo abaayo wax walba adduunku way dhacaan, wax walbana waa la arkaa. maanta hadday qoran tahay inaa hooyo la-aan kortay dhibaato ma lahan insha allah. ilaahay waxaan kaaga baryayaa halkaana usoo fariistay awlaadaada inay adiga ay gacantaada soo galaan, maadaama maanta aad sheegtay, aada hore u sheegtay awlaadaada inay maanta gacan fiican ay ku jiraan, waalid fiican oo jecel ay haystaan. aad ka hadashay aada maanta aadan hooyada baadiya jirta markuu aabbahay dhimanayo ilaa haddana baadiya jirta sida wada ogtihiin. ma rabo inaan ka hadlo waxyaabihii aan kusoo koray iyo qabka usoo koray inaan ka hadlo ma rabo, laakiin hooyo macaankeeda waxaa dareemi kara qofka hooyo soo korinin dalkaaga. intaan ka badan inaan micnaha aan farxiyo sii shido ma rabo. aad iyo aada ugu daqanaya dhibaatadeeda leedahay. waxaan rabaa inaan farxiyo la hadlo insha allah. hadday videogeyga aragto waxaan jeclahay inay ku qanci doonto usoo duceeyo walaashay. marta gabdhaha walaalaha soomaaliyeed garabkaa taagan insha allah abaayo. qofaan nolol istiri xun aan ku jirin way yar tahay. gabadhii la qabo oo meel degan hataa waxaa arkaysaa abaayo inay awlaadeeda darteed u sabrayso, awlaadeeda darteed wax walba ay ku aamusayso, taasoo keenaysa in awlaadeeda ay waynin oo maanta loogu hanjabayo haddii maanta aa kala tagayn awlaadeyda bartaas ii dhig. maanta mid keligaa ku haysato ma ahan, waa gabdhaha 80% wax haysto. maadaama maanta alxamdulilah aa dhahday awlaadeyda meel qurux badan ay ku nool yihiin, meel qurux badan ay taagan yihiin aa dhahday, aad iyo aada ugu faraxsan. horta ugu horreyntii waxaan kaa rabaa insha allah dadaal badan, shaqo wacan inaad gashid abaayo, aad shaqaysid sidaad awlaadaada aad iskugu filnaatid, awlaadaada ay gacantooda ay soo gasho. subxaan allah, ani waxaan la yaabay oo aad iyo aada ula yaabay oo dhibaato igu ah oo la yaabana waxay tahay markii gabadha la qabo oo ay degan tahay meel, waa la biilayaa, biilaa la siinayaa, wax walba waa lagu tarayaa, ciyaalka wax walbaa la siinayaa. markii la kala tago ma la ogolo in maanta la siiyo oo micnaha la siinin. marka taasaan la yaabanahay waxa oo keenaya in gabadhii biilka laga jirto, gabadhii ilmaha dhig in la dhaho. marka abaay macaanta insha allah farxiyo waxaa ku leeyahay dadaal badan sameey, shaqeey, habeen iyo maalin shaqeey, habeenkii ha ooynin, oohinta jooji. wax walba oo murugo walbana waa dareemi karaa, waxa maanta ku oysiin waa dareemi karaa. hooyaa tahay, ani hooyaan ahay, hooyanimada waxay tahay qofkii hooyo unbaa dareemi kara. insha allah ilaahay waxaan ka baryaa awlaadaada sidaada kaligaa waxa la oynaysa waxay tahay farxiyo badan ay la oynayso. qofka indhagaraadlaha, qofka micnaha wax dareemi kara wuu dareemi karaa dhibka ayada ay soo martay hooyo la-aanta ah. qofka dheef walba hadduu kusoo koro maanta hooyo haysanin waxbaa ka maqan, waxaas ka maqan ee iyada ay soo martay diidantahay inay ilmaheedana maraan. wax walbana wax qoraalaan dhihi karaa, ilaahay wuxuu qoray waayo farxiyo. marka insha allah abay macaanto garabkaada ahay. halkan waxay soo fariisiyeen wallahi saacad ka hor in rabin waa duubi waaye. calool xumada farxiyo aada ula calool xumaday wallahi. farxiyo Soomaali Turki ma farxiyo Turki sorry farxiyo Soomaali dadka Turki u yaqaana farxiyo Turki. farxiyo Soomaali waa arkay videogan ka soo hadlay, saas uma ooynin sida maanta u ooyo. waxa keenayso farxiyo ilmeeda way haysataa, laakiin gabadha awlaadeeda ma haysato, ma ag joogaan. marka insha allah ilaahay waxaan kaaga baryaa baayo kal ilaaba kugu soo duceynayno awlaadaada iyo adiga wada faraxsan inay yoom ayaan insha allah social media ka soo muuqatid, ama aad soo fariisto tiraado faraxsan aad soo hadasho abaayo. insha allah hadduu ilaahay raali ka noqdo waana helaysaa. hankaadana ha sareeyo xayaati, hankaada ha sareeyo insha allah waa gaari doontaa. asxaabta igu xiran
waxaan iga baryaa aan iga codsanaya insha allah videoga inaad share garaysaan aad kali laab usoo duceysaan min qalbi aad kusoo duceysaan farxiyo inay awlaadeeda hesho gabadha beebidaana awlaadeeda inay hesho iyadana hadduu ay ilmo qof ka maqan yahay u daawanayna awlaadiisa inuu qofkaas isagan uu helo insha allah uu rajeynayaa hooyo walba ilmaheeda ka maqan ilaahay wuxuu u baryaa hooyo in ilmeheeda hesho video intaas soo gabagabeynaya iga raali noqda wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh